madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in isbedel degdeg ah lagu sameyn doono madaxda laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib weerar qorsheysan oo maalintii shalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shir jaraa'id uu qabtay waxaa ka qayb galay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdicasiis Cali Guuleed warbixinta warkana inooga diyaariyay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay soo saari doonto amaro iyo dadaalo cusub oo dhinaca amniga ah kadib weerarkii shalay lala beegsaday dhismaha madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballan qaaday in isbedel degdeg ah lagu sameyn doono laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya inuu yimid kadib habacsanaan dhanka laamaha amniga ah iyo isku haleyn madaxda iyo saraakiisha ammaanka ee hay'adaha dowladda. waa ka tiro badannahay, waa ka xoog badannahay, waa ka xoolo badannahay, waa ka caqli iyo garasho badannahay. abaabul la'aan iyo diyaar garoobid la'aan iyo ku raadaya hawsho aan isku haleynay oo qoladaasaa qabanaysa waayo cimrigooda wuxuu ku jiraa maantana dadka Soomaaliyeed meel kasta ku nool way wada garteen inay u soo jeestaan in shabaab lala diro. waxaan rabnaa aan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan in ay joojiyaan wax kasta oo muhiimad ah oo maanta jiro oo aan ahayn dagaalka shabaab lagu qaadayo xoreynta dalka laga xoreynayo nimankan cadawga ah. madaxweynaha ayaa geesa kala sheegay in dowladda ay dagaal weyn ku qaadi doonto deegaanada ay weli ku harsan yihiin dagaalyahanada xarakada al-shabaab wuxuuna ku baaqay dadka inay joojiyaan dhammaan howlaha muhiimka ah ee hayaan isla markaana ay dowladda ka caawiyaan sidii looga guuleysan lahaa dagaalyahanada xarakada al-shabaab sidoo hadalku dhigay madaxweynuhu. xarakada al-shabaab ayaa iyadu sheegtay mas'uuliyadda weerarkii lagu qaaday xarunta Villa Soomaaliya ay ku dhinteen ku dhawaad in ka badan 20 ruux. weerar ka soo baxay maanta qaramada midoobay midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka iyo waliba wadamada midowga Yurub ayaa dhamaantood cambaariyay weerarkaasi ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.